dhulkan ka soocaya Djibouti iyo Eritrea. Bunti oo la sheegay inay tahay hooyada ilbaxnimada faraacinta ayaan la ogeyn burburkeedii iyo sidii ay ku burburtay iyadoo aan xitaa la helin raadidkii burburkeeda ka bacdi. waqtiga saxda ah ay bilaabatay ilbaxnimadii Bunti oo ahaa mid aan la ogeyn awgeed haddii aan ka soo tirino markii ugu horeysay ay la macaamileen faraacinta. ilbaxnimadii Bunti ayaa jirtay 4524 sano ka hor. hadda taasi oo ka dhigan inay ahayd markii ay faraacintu tageen dhulkii Bunti 2500 sano ka hor dhalashadii Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam. taariikhda lumidii ilbaxnimadii Bunti oo aan la hubin waxaa la qiyaasaa markii ugu dambeysay ee buugaagta faraacinadu qoraan inay ahayd 70 sano ka hor dhalashadii Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam. haddaba haddii ay inta la macaamilayeen faraacinta kaliya ay ahayd 1430 sano waxaad fahmi kartaa in ilbaxnimadii Bunti ay jirtay in ka badan 10 qarni iyo haaf.